بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدا أينو كودا ورقبنو قبل كسول حرونتي سمقالة اللاسعانود وحمد بالكل هذا قاركودا ما كباب بدل شوقي حبنو قلو وزيراء قدوميها قراها وكيلة جمهورية الصوماليلاند taliyaha ciidanka qaranka iyo saraakiil la socda waxa ay u socdeen kulankii ugu dambeeyay golaha wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo xil saaray in arrinta hadda ka taagan magaalada Laascaanood ay maxaanku dhahday hawsheeda ay galaan guddidaas intaan soo anbabixin waxa xiriir la soo yeeshay waayeel siyaasiyiin iyo waxgarad doonayay inay wax ka taraan waxna ka qabtaan dowladana kala howlgalaan arrinta maxaanku dhahday gobolka Laascaanood talooyinkii odayaashaasi ay soo jeediyeen iyo wasiiradii ugu soo horeeyay ee kasoo qayb galay inay halkan yimaadaan 28kii bishii November diiwaangelinta kasoo qayb gali lahaa xaaladuna ay la kowsatay talooyinka la soo jeediyay waxay ahaayeen in ciidamada amniga joogay ay magaalada koonayaasheeda iyo maxaanku dhahday dawladda ay u joogaan ciidamo maxaanku dhahday isla ciidanka qaranka ka tirsan ay gudaha la soo geliyo magaalada Laascaanood si amnigooda u hayaan taa la ogolaaday madaxweynaha markii ay la kulmeen waa la ogolaaday sababta loo ogolaadayna ay ahayd iyadoo la doonay markaa in lagu bambaaniyo laguna dejiyo xaaladda maxaanku dhahday magaalada ka taagan arrinta ku xigtay waxay ahayd in halkan shirka laga abaabulo shirka markaa badankoodii marka laga reebo mid iyo laba ay guddigood maxaanku dhahday ay joogaan aanay joogin Somaliland gudaheeda aanay ku jirin isimada ugu badan oo joogay Garowe iyo qaar meelo kale oo deegaamada maxaanku dhahday beeshana ay degta joogay in loo soo ogolaado inay halkan wada yimaadaan sababta taa loo sameeyay waxay ahayd in la raali geliyo waxana laga gaashaanto cabashooyinka jira inay wax ka tarto go'aamadaas laga qaatay garaadadaas iyo isimada imanaya markaa waxa ay noqotay in ay magaalada soo kaxeeyaan oo ay soo geliyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland arrinta imaantoodii waxa ku soo dhex dhuntay oo yimid dad fara badan oo ama ka tirsan maamulka maxaanku dhahday Puntland maamulka Soomaaliya waxa iyagu u bixiyeen SSC Khaatumo oo ay dhahdeen jigjiga berigi dhowta lagu soo aasaasay dabadeedna halka iyagu calamadii Soomaaliya sitay yimaadeen mararka qaarkoodna hodelkan ku jirno garaadada qaarkood marka ay hormarayeen rasaas aad iyo aad u fara badan bay maxaanku dhahday ay nagu rideen xubnaha golaha wasiirada iyagoo madaxweynahana la sheergareynaya iyo golahoodii ay ka tirsanaayeen gudoomiyaha golaha wakiiladana ay wada joogaan oo ka wada tashanayaan waxay ka indhaqarsadeen waxyaalaha maxaanku dhahday la sameynayo inaanay waxba ku darsanin ay ka dulqaataan maadaama loo socdo wado weyn oo la doonayo in lagaga hadlo amniga dhidibaaashadiisa iyo maxaanku dhahday adkeyntiisa iyo dareemada siyaasadeed ee maxaanku dhahday la qabo in hawsheeda wada tashina laga yeesho la isagana yimaado isla markii golaha wasiiradu uu yimi ismaduna ay yimaadeen guddi 3 ay magacaabeen golaha wasiiradu waxay go'aan qaateen inay kulmaan wada tashi ku kulmaan garaadadu sidoodaba way diideen inay nala kulmaan guddida 3 iyo 30 baa hal mar nala kulantay
waanu wada hadalay maalin dhan baanu wada hadlaynay annagu haddaanu golaha wasiirada nahay tale waxaanu kusoo jeedinay wadahadal guudna inay intan inoo noqoto isla barahaantaana inaynu yeelano iyaguna ay guddi iska soo xulaan annaguna aanu guddi iska xulno dabadeedna aanu isu nimaadno wada tashi isugu nimaadno wada hadal isugu nimaadno wada xaajood isugu nimaadno xaaladda si iskuda macdamaa aanu meel wada joogno aanu wada qiimeyno guddidaa dambe iyo isku soo noqodkiina waa ay diideen dadaal fara badan waxaa sameeyey guddoomiyaha golaha wakiilada oo la kulmay garaadadana arkay hal mar labaadna ay u suuro geli weyday guddidana mar iyo lababa ka badan ba arkay annagu inaanu saragnana abiilka iyagii maxaanku dhahday ay u geeyey taasina way suuro geli weyday qolyaha dabadaha ka yimi iyaga laftooda oo aanu codsanay inaanu saragno may noo imaninoo ismaanan codsan hadda iminka ugu dambeyntii shalayto waxay ku dhawaaqeen isimadu inay soo saarayaan go-aan maantada hore waxay u sheegeen oo u iclaamiyeen in ay dagaal la sameynayo gadaasha dambe fariimihii noo kala socsocday iyo waayeel fara badan oo nabadoon ah waxaa muuqatay in ay ka saarayeen oo yidhaahdeen arrinta nabadda waanu annakuna waxbaan qayb baanu ku yeelanaynaa hase ahaatee fadhigii saaka ay isugu iman lahaayeen waxaa kasoo hormaray saaka 5:00 iyo barkii subaxnimo in ciidan hubeysan oo tignika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid a xeryihii ciidamada qaranka ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen xeradoodiina may dhaafin ilaa iyo imika xeryahoodii baanay ku sugan yihiin waxa weerarka wada ilaa saacadan imika anigu aan hadlayo ciidamadii ay garaadadu soo abaabuleen ayaa weerarka ilaa iyo imika wada waxa si bareer ah u hadlaya oo maxaanku idhahday midyahoo dhan ku jira garaad jaamac garaad cali oo la ka kacay dagaalamay ayaa maxaanku idhahday ku jira waxaa ku jiro de isaguna le maxaanku idhahda waryaada nabadda ha la ilaaliyo garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa le maxaanku idhahda nabadda ha la ilaaliyo garaadada qaar goobta la yidhi qaraarka lagu soo saaray mabay tegin ayaanay tegin qaraar baa la yidhi way soo saareen midyuhu ku jira qaraarkaa bay soo saareen garaadadu umay dhamaystirneen waa 1 waa 2 goobtii maxaanku idhahdayay shirku uu ka socday laguma soo daynin waa 2 waa 3 guri gaarabaa maxaanku idhahdayay lala tegay waa 4 qaarna maxaanku idhahdayay shalay taabay ambabaxeen qaarna waxaaba la leeyahay hadday xirxiran yihiin oo la doonayaa inay ambabaxaan dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo laascaanood cidda laga xoreynayo aan la garanaynin kii unbaa maanta maxaanku idhahdayay lasoo dedejiyey oo nasiib daro baaqaas walqal iyo duco waxaa looga dhigay xabadda saaka dhacday ayaa looga dhigay maadaama barnaamijka maxaanku idhahdayay dowladda somaliland horena ay u sheegtay mar walba barnaamijyadeeda siyaasadeed barnaamijyadeeda maamul barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in 1 nolosha reer somaliland iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada waa 1 waa 2 in xabadda la joojiyo ciidamada in xabadda laga daayo ciidamadu aada iyo aad bay u dadaalayaan in xabadda laga daayo ciidamaduna dadkooda way bambaaninayaan iyagana xabadda way daynayaan wixii arina
bini aadmigu xabad kuma wada hadlee afkuu ka wada hadlaa ciddii tala haysa iyo ciddii arrin haysa nabadda la isugu yimaado aada iyo aadna waa mahadsantahay guud ahaan dadka shicibkaa guud ahaan dowladda somalilan guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan inaynu labada gamcood isugu tagno isugu geyno inaynu nabadgelyada dib u soo dabaalo waxaan kaloo oo leeyahay aan farayaa oo baaq u dirayaa garaadada isimada qaarkoodna shalayta iyagoo xidhxidhan ay baxeen qaarkoodna la leeyahay maanta iyo beritiyo saa dambe ay baxayaan waxa aan leenahay dhaawacan dhimashada iyo dhaawacaba keenay dagaalka saaka laascaanood ka bilaabmay in dib loogu soo celiyo nabadgelyo ayaguna aanay ka bixin aynay goobjoog noqdaan haddii ninkii ka baxa meel tegi maayo meelahay ka yimaadeenna waa la garanayaa waxaana ay noqonaysaa markhaati furo inay iyagu yihiin ciddii dagaalka abaabushay iyo fulinaysa waa mahadsan